أولا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. داود يا الكسو دبادا قصة قيمة بدن وأنا عجيبة. نين أيا مالين مالمها كميدا وحو صور راعي دون دونتو حصارنا دad u fara badan. doontii markii ay socotay muddo waa ay gadoontay oo waa ay qalibmatay. dadkii saarnaa ayaa dhammaantooda geeriyooday marka laga reebo ninkii sidii u soo dawaalinayay oo soo socday wuxuu soo gaaray asigoo rafaadsan oo daalan oo gaajeysan meel duur ah oo xeeb ah ayuu soo gaaray. ninkii wuxuu isku dayay inuu dhisto daash ama meel uu seexdo. markii uu dhistay waxa uu doontay miro si uu u cuno oo gaajada uga baxo. intii uu ku maqnaa miraha markii uu soo laabtay wuxuu arkay daashkii uu dhistay oo gubanaya. markaasuu wuxuu yiri ilaahow maxaad sidaan igu galaysaa? ninkii wuxuu iska seexday meel ka mid ah meelaha ama dhinacyada daashka ayuu iska seexday. subaxdii markii waagu uu baryay wuxuu ku soo kacay qaylada markab xeebta taagan. ninkii ayaa soo raacay markabkii, dadkii u imaaday ayaa soo raacay. cabbaar markii uu socday oo markabka saarnaa ayuu dadkii weydiiyey sidee halkan ku imaadeen. dadkii markabka saarnaa ayaa waxay ku jawaabeen xalay saq dhexe waxaan aragnay holac iyo qiiq ayaan aragnay oo hawada isqabsaday. markaas baan waxaan isdhahnay halkaas qof baa ku dhibaataysan ee nakeen aan soo fiirinay. marka sidaas ayaan kugu soo wadnay. haddaba alle subxaanahu wa tacaala waxa uu wanaag kuu soo marinayaa meel aadan ka filnaynin. haddaba ha ku degdegin. dhammaanteen haddii aad muuqaalkan nala dhamaysatay fadlan waxaan kaa codsanaynaa inaad like garayso saaxiibadana aad leedahay. mahadsanidin.